Victor soo dhawow ugu horreyn magacaaga adigoo ku bilaabaya. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Cabdikariin Axmed Samadoon waxaan ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cabdulle Hospital. Doctor, waa maxay cagaarshowgu? Cagaarshowgu waa xanuun uu midkan haddaan ka hadlayno uu keeno virus oo ku dhaca beerka qofka dhiiggiisana ee raaci kara kaasoo wuxuu isugu jiraa mid qof yar waqtiga haya oo iska baabaa oo kuwa laga qaado cuntada iyo waxaas iyo kuwo waqti dheer micnaha qofka baaga dhibaatooyin kalena u keeni kara beerka. Meeqa nooc ayuu u qaybsamaa cagaarshowga? La dhowr nooc buu kala baxaa. Waxaa jira A, waxaa jira B, waxaa jira C, D, E iyo mid kale oo la yiraahdo autoimmune inta ugu badan intaas weeye. Sidee buu ku faafaa xanuunka cagaarshowga? nooca eega oo kale badanaa waxaa lagu kala qaadaa qofka in waxyaalo cuntooyinka iyo wax la xiriira ilmaha iyo uu badan yahay saxarada waxaas laga qaadaa. laakiin noocyada khatarta B-da iyo C-da badanaa waxaa laga qaadaa waxyaalaha dhiigga wixii la xiriira ama dheecaanada qofka markii ay isu gudbaan qofka qaba iyo qofka aan qabin. مثلا haday dadku ay cirbada ay wadaagaan oo kale ama meel aan si fiican nadaafadeedu u fiicnayn oo qalabka aan si fiican loo jeermis dilin dii laba bukaan oo kale loo wada isticmaalo. B-ga galmada waa lagu kala qaadaa asoo qulliisa C-ga number yar waa qofka laga qaadi karaa. waxyaalahaas ay u badan yihiin B-ga hooyadu hadday qabtay ilmaheeda iyadana way u gudbin kartaa. Doctor, maxay yihiin dhibaatooyinka ka dhalan kara cagaarshowga? midka badanaa eega oo kale dhibaatooyin uu keeni karaa micnaha qofka xataa in xaaladdiisu ay khatar gasho laakiin badanaa uu iska dhammaadaa qofkan uu ka baabaa. laakiin kuwa raaga ee B-da iyo C-da kuwaas ayaa dhibaatooyin keena. waxay keeni karaan waxyaalaha ka mid a in beerka uu adkaado oo beerkii uu shaqayn waayo. markii beerku shaqayn waayana shaqadii micnaha jirka uu sameyn la uu gabo oo qofka xanuunkaas uu dhinto. waxay kaloo keeni karaan dhici karta qaarkood inay u gudbaan xaalad kansarka ku dhaca beerka. Doctor, ma leeyahay daawo ama talaal looga hortagi karo? haa B-ga wuxuu leeyahay talaal waa la talaali karaa. talaalkaasoo micnaha wax badan qofka ka ilaalinaya inuu xanuunkii uu ku dhaco. laakiin daawo wuxuu leeyahay daawona uu leeyahay waa la daaweeyaa daawo micnaha qofkii uu waqti dheer qaadanayo. laakiin C-ga talaal ma laha laakiin nasiib wanaag wuxuu leeyahay daawo qofka jirkiisa viruski micnaha uu ka baaba'aya xanuunkii micnaha uu noqonayo qof xaaladii micnaha ka caafimaada ama curable waxa loo yaqaan. Doctor, talaalka cagaarshowga qof waliba miyaa qaadan karaa? talaalka markaan ka hadlayno B-ga wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu fiican looga hortagi kara xanuunka. ilmaha markay dhashaan waa la siiyaa waxaa ku jira talaalada hadda la isticmaalo. haddii aan hore loo siin oo kale waxaa fiican inay qaataan. dadka ka shaqeeya meelaha caafimaadka meelaha kale oo khatarta oo kale u nugul inay qaataana fiican. qof kastana wuu iska qaadan karaa haddii aan wax dhibi jirin. Doctor, sidee looga hortagi karaa xanuunka cagaarshowga? waxyaalo badan oo looga hortagi karaa waxaa ka mid ah horta qofku inuu iska ilaaliyo dadku waxyaalaha ay wada wadaagaan oo kale cirbada ay noqon kartaa ama waxyaalaha tinta iyo lagu xirto ama cidiya jarta oo kale waxyaalaha saas oo kale qofka qaba micnaha inaadan la wadaagin. qofka dhiigga markii lagu shubayo oo kale in si fiican loo baaro ama haddii qofka qaliin loo samaynayo ama ilka laga bixinayo ama waxyaalahan kale oo meelahaas waa laga qaadi karaa ilmaha daawo dhaqameedka iyo waxaas oo kale. ka lamaanayaasha markii ay isguursanayaan inay iska baaraan iyadana way fiican tahay xanuunka ay iska hubiyaan. waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha looga hortagi karo in qofka uu iska ilaaliyo inaanay xiriir yeelan dhiiggiisa iyo dhiigga qof kale xanuunka qaba. Doctor, sidee loo ogaan karaa in uu talaalkan uu yahay mid shaqeynayo?
qofka markii la tallaalo tallaalka biiga waa tallaal macnaha 3 waqti la qaato kadib waxa qofka hore u qaatay inuu u shaqeynayo in kale waxa jira dhiig laga qaado dhiigaas ayaa marka cabirkii laga reebay qofka ku filnaa oo ka ilaalin kara xanuunka inuu gaarsiisan yahay in kale ayaa la qiimeeyaa dhiigaas lagu waanaa doctor ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed maxaad ugu talin lahayd si ay uga hortagaan xanuunka cagaarshowga bulshada waxaan kula talin lahaa inay horta xanuunka ay ogaadaan xanuun qatar inuu yahay ilaa 1 milyan oo qof ayaa sanad kasta u dhimata adduunka dad badan oo Soomaaliyeed uu ku dhacaa qayb ka yihiin in xanuunka ay ogaadaan qabadka biigo kale in laga hortagi karo talaalka la qaadan karo siigana inuu daawo leeyahay marka inuu daawo u baahan yahay in kale dhaqaatiirta ayaa qiimeyn kara baaritaanna waxa jira oo gaar ah oo la sameeyo oo qofka markaas taladii ku haboon la siin karo waxyaalahaas marka adeegyadaas oo dhan aan hadda kor ka soo hadlo dhan aan leeyahay talaalka aan leeyahay baaritaanka aan leeyahay la socoshada waxa soo dhan isbitaalka Aadan Cabdulle waa laga helaa waa diyaar ayaa u nahay in adeegno bukaanada Soomaaliyeed